nin u sujuuday gabar quruxdeeda darteed taasi oo uu ku mutaystay qaabta Alle. Subxaanallah, waa qiso aadan rumaysan karin qaabka ay u dhacday. Haddaba ina keen si aad noola daawato. Intaynaan muuqaalka u gudagelin, waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka, lana wadaagto asxaabtaada. Nagu soo biir oo gambaleelka furo. Mahadsanid. marka la soo dhawaada saaxiibayaal, maanta waxaan idin soo gudbin doonaa qiso cajiib ah. Qisadan waxaa ka sheekeeyay ninka qisada ku dhacday gabadhiisa, waxayna ku bilowday hadalkeeda sida tan: waxaan dunida indhahayga ku soo furtay aabahayga oo mashquul ku ah adduunyada, hamigiisa oo dhan siiyay. waxa uu ahaa mid caba khamriga, waxa uu la tuman jiray gabdhaha, waxa uuna ku sugnaa wax kasta oo keeni kara caro Alle. ayadoo hadalkeeda sii wadata ayay tiri, aabahaygu waxa uu aad u jeclaa la tumashada gabdhaha. maalin kasta waxa uu la tuman jiray gabar cusub. gabdhaha waxa uu ku ballansan jiray internetka dhexdiisa. markii ay kulmaanna waxay isla cabi jireen khamrida, waayna wada tuman jireen. arrintaasi waxa uu u malayn jiray inaanan ogaanayn weligeennaba, waana uuna jeclaa anaga. waxa uuna nagu boorin jiray inaan xijaabka dhigno oo aan xijaabka iska dhaafno oo aan ku labisano modelka cusub oo xilligaasi soo baxay. laakiin hooyaday waa ay ka duwanayd aabahayga, waayo waxay ahayd qof wanaagsan oo xijaabka sharciga ah xirata. anigana waxaan jeclaa inaan xirto xijaabka sharciga ah ee hooyaday ku labisan jirtay. laakiin aabahayga waxa uu maalin walba ii sheegi jiray inaanan xiran xijaabka oo aan iska daayo. xitaa mararka qaar waxa uu iga celin jiray lacagaha uu i siiyo si aan xijaabka u dhigo darteed. xilligaas aniga waan yaraa oo waxba ma kala garan karin, oo waxaan iska dhigay xijaabkii si aan u raaligeliyo aabahayga. aniga wax aqoon dheeri ah uma lahayn xijaabka, ee waxaa iga go'nayd keliya inaan aabahayga raaligeliyo. xilligaasna aniga aad ayaan u yaraa oo diinta si fiican uma fahamsanayn. aabahayga maalin kasta waxa uu ahaa kuwa waqtiga la qaato saaxiibadiisa, wiilal iyo dumarba isla jira, ayagoo isla tuman jiray. laakiin hooyadayda maysan jeclayn ficilada uu aabahayga ku dhaqaaqayo. waxay ka waanin jirtay waxyaabaha uu ku kacayo halista ay leeyihiin. laakiin aabbo dhegna jalagna uma siin, ee waxa uu saa'id u jeclaa inuu soo dhaxo habeenkii si asiga iyo saaxiibadiisa ay iskula soo tuntaan. hooyaday way ogeyd arrinkaas, laakiin dhibteeda way u dulqaadan jirtay, maxaa yeelay waxay diidanayd inay kala tagaan maadaama oo aabbo isaga nagu biili jiray. hooyo markasta waxay dhihi jirtay, ninkan waa uu i dulmiyay oo maalin walba waxa uu la soo tuntaa gabdho kale guriga banaankiisa ah. naftiisa xor ayuu u yahay, waxa uu rabo ha sameeyo, alla ayaa la xisaabtamayo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa aabahay waxa uu u safray dhanka iyo Yurubta, asiga iyo saaxiibadiis, si ay halkaasi khamri uga soo wada cabaan ugana soo tuntaan. inta uusan safarka gelin ka hor ayaa waxa ay hooyaday ku tiri, nin yahow ka joog waxyaabahan xaaraanta ee aad samaynayso, aniga waxaan kaaga cabsanayaa ciqaabta Alle. insaanku ma oga meesha uu ku dhimanayo iyo waqtiga uu dhimanayo, waxaana uu kugu waajib ah inaad Alle u soo laabato oo aad u tooba keento. markaas ayaa waxa uu ku jawaabay, saaxiibadayda kuma soo tagi karo, waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee ay i garab taagan yihiin, waxaan isla qaadanaynaa raaxada adduunyada. markaas ayaa naagtii ku tiri, haddii aad ka fikirtay raaxada adduunyada, maxaa ku ilowsiiyey raaxada aakhiro iyo shaqada ay kaaga baahan tahay? haddii aad fasahaadkan hadda ku jirto ku dhimato, sidee ayuu aakhiro janno Allah kuu geynayaa? markaas ayuu ku yidhi, hadda caafimaadkaygu waa uu wanaagsan yahay, qof dhimasho u dhowna ma ihi, ee buuqa intaad iga dayso macalaamo. saaxiibada ayaa waxay guriga banaankiisa, waxaan rabaa inaan ayaga safar isla aadno. naagtii aad ayay u murugootay xaaladda iyo marxaladda uu ninkeedu ku sugan yahay oo fasahaadka ah. intaas kadib gabadhii sheekaday waday waxay tiri, aabba maalintaas kadibna looma soo hadal. waxaana ka soo wareegatay muddo bil ah. bil kadib goor casirliiq ayaa waxaa albaabka noo soo garaacay aabahay saaxiibkiisa. waxa uuna nagu yidhi, aabahiina waxa uu guriga ku soo laabanayaa beri. aad ayaana u faraxnay warkaasi. intaas kadib saaxiibkiisii ayaa yidhi, laakiin waxa uu soo laabanayaa asagoo meyd ah, ee waa uu dhintay. aad ayaan u murugoonay, waana oynay. aniga waxaan ahaa gabdhihiisa midda uu ugu jecel yahay, wax kastana ayuu i siin jiray. anigana aad ayaan u jeclaa, aad ayaana ugu ooyey.
hooyadayna aad ayay ugu oyday. Markaas ayaa waxay tidhi hooyaday, aniga waan ogaa waxaan dhan inay dhacayaan, waana uga digay arrimahan oo dhan inay dhacayaan. Dhowr jeer hore ayaan u sheegay. Gabadhii oo hadalkeedii wadata ayaa tidhi maalmo kadib waxaan go'aansaday inaan u kurgalo qaabka uu aabahayga u dhintay. Waxaan raadiyay aabahay saaxiibkiisa, waxaana la ii sheegay inuu masaajidka ka faaruqaynin. Aad ayaan ula yaabay arrinkaa, waayo ninkan waxay isla tuman jireen aabahay. Oo waxa aan la yaabay waxa ninkan beddelay oo arrimihiisa oo dhan uu uga tagay. Waxaan la kulmay ninkii, waxaana dhahay sidee ayaa aabahayga u dhintay. Ninkii aad ayuu u ooyay. Markaas ayaan waxaan ku idhi ma rumaysni waxaad hooyaday u sheegtay ee aabahayga sidee ayuu u dhintay. Waxa uu igu yidhi shil gaari ayaa ku dhintay. Waxaan ku dhahay aniga ma aaminsani ee runta ii sheeg. Markaas ayaa ninkii ii yidhi haddaba si degan ii dhageyso. Aniga iyo aabbaha waxaan ku jirnay safar, waxaan la socday gabdho, waxaan cabaynay khamriga. Aabbaha ayaa ii yidhi gabadha aan la socdo ayaa ka qurux badan tan aad la socoto. Markaas ayaa anigana aan ku dhahay maya ee taa aan la socdo ayaa ka qurxan. Markaas ayaa waxaa noo soo gashay gabar aad u qurux badan oo dhalaalaysa. Aabbahaga ayaa gabadhii u sujuuday asigoo ku xurmaynaya quruxdeeda, mana soo kicin. Intaasi kadib waan u wacay aabbaha dhowr jeer, laakiin ilama uusan soo hadlin oo jawaab ima uusan siin. Waxaan soo qabtay garabkiisa, waaba uu dhintay mar hore asigoo gabadhii u sujuudsan. Subxaanallah. Markaan arkay qaatim xumada uu aabbahaga ku dhintay ayaan go'aansaday inaan ka soo laabto xumaanta aan ku jiray, ilaahayna u toobad keeno oo aan xumaan dambe u laaban. Gabadhii qisadii loo dhameeyay guriga ayay ku degdeg u tagtay ayadoo xijaabkeedii qaadatay oo alla weydiisatay inuu qaatimo wanaagsan siiyo. Intaas ayaan muuqaalkeena maanta kusoo gabagabayn doonaa. Wixii talo iyo tusaale ah qaybta commentiga noogu reeb. Haddii aad ka heshayna like saar. mahadsanid.